السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan wataa codsi aan qof bin aadan weligeey codsi aan ka codsan wax saa u adag codsigaasna waxa uu diraa ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre. anaga waxaan ka mid nahay caruurtii ku soo kortay dagaalo dhibaato dhibaatada weyneed ka dhacday Muqdisho. aniga ma dheh ani ahaanteydii ma dhahayo dhibaato waxaan u aqaanaa musiibo. horteena ayaa lagu kufsaday saaxiibadeena, horteena gacan iyo lug lagu gooyay, horteena dad dhagax lagu dilay, horteena dad lagu dhibaateeyay, horteena saaxiibadeena hooyooyinkooda lagu kufsaday. markii oo dhibaato ilaahay naga soo bixiyay waxaan nimaanay Yurub, waxaan ka soo tagnay eheladeena ka soo tagnay. weli waan hal habeen 13 sano joogaa Sweden, hal habeen kumaan seexanin farxad. dadkeena ka eheladeena ka soo tagnay, saaxiibadeena ka soo tagnay, wadankeena ka soo tagnay, diinteena ka soo tagnay, masaajidadeena adimayaan ka soo tagnay. waan qanci weyne, farxad waan arki weyne. marka waxaan ka codsanayaa maadaama aad leedahay taageero badan oo aniga aan ka mid ahay taageerahaaga, maadaama aad leedahay qabiil, maadaama aad EU iyo America kugu soo danaaninayso, waxaan kaa codsanaa in aad hadalkaaga u dhahday ay ahaaday anaga ma nin lagu dayadaa noqonaya. ما وان ognahay inaan wanaag Soomaaliya u soo sameysay, laakiin wanaagaas wuxuu kugu yahay waajib. wanaag aan loo baranin 30 sano ayaa sameysay, laakiin taas waajib kugu ahayd. qof Soomaali kasta laga rabaa adaa isgartay 30 sano kadib, qofka isgartay waa adiga. haddana daraad markaa shaqada ka tagaysay waxaan ka dhadhamsaday wajigaagay xanaaq. marka waxaan ka codsanayaa sida afkaaga ku sheegtay qof lagu dayado aan noqonayaa adiga dhaxday. waxaan ka codsanayaa waa codsi, ma aqaan codsiga inuu ku soo gaari doono, laakiin sabada waxaan ku tuuraa dhalaxaansho ku dhex jirto. haddii ku soo gaarto waa kaas, haddii ku soo gaarin ilaahay iska qabaa. laakiin codsigan ka codsanayo waxay tahay maanta taageeradaada inaad ku tiraahdo dawladda taageera, waa ina EU ku tiraahdo dawlad ka dhaxbaxa, EU iyo America ku tiraahdo ka dhaxbaxa. waxa ay soo danaaninna dalka dawladda oo leeyahay markaas aan oo danaanisay. laakiin maanta haddii qabiiladaada ku soo danaanay aad dhex gashid ma danaanin. marka taageeradaada ay ku soo danaaniyaan aad ka aamusid ma soo danaanin. wax aan kugu xasuusanayna ma jiri doonto. aniga waxaan ka mid ah taageeraha ugu weyn ka mid ah, laakiin mar rabo maanta in aad dawladda farmaajo hogaamiye iyo maxal yiraahdaa baarlamaanka maanta EU ama taageeraha ama qabiiladaada aflagaaday ama dhibaateeyaan ma ogoli. taasna waxaan u aqaanaa waxa waayaan waxa dulmi. marka waxaan ka codsanayaa maadaama aad noo sheegtay in aad tahay maanta muwaadin aad lagu xasuusto noqon doontid, in aad saddexdaas waxyaalood aad ka hor tagtid oo ka mid tahay qabiiladaada maanta ku soo danaaninayo, taageeradaada maanta ku soo danaaninayo, iyo EU iyo America oo maanta danaano wado. maanta dalkeena danaano cid hal shaqsi loo soo danaaniyo ma rabno. dawladda haddii xunta xumaanteeda ayadaa soo baxayso. waxaan kaa codsanayaa intaasoo dhibaataan soo marnay, intaas dhibaato ma dhihi karaa, aniga musiiba dhihi karaa. waxaan kala garan weyne madiina mise waa halaag asbahan. marka horteena gacan iyo lug inta la gooyay siinaa lagu soo dhajiyay ma tani musiibo miya mise waxa waayaan waa diin. waa kala aqoon kari weyne. waxaan ka codsanayaa adoo dalkaaga iyo diintaada dafaacay in aadna horkicin qabiil, in aadan horkicin taageero, in aad EU iyo America aadan horkicin. intaasaan ka codsanayaa. dawladdan way dhamaanaysaa. ilaahu haddii joogto xataa 2 sano 3 sano kale way dhamaanaysaa. qofkii isku soo sharxayna waa adiga. qofkan taagi
aan maxal yiraahdaa aan u codeynayno waa adiga marka saddexdaas inta yarta ee joogto dowladda farmaajo iyo maxal yiraahdaa baarlamaanka intoo joogo waa ku baryaa noo soo danaani taageeradaada naga celi qabiiladaada iyo America naga celi waa codsi kaaga yimid aniga Layla Xuseen Cali aadan ku salaamaya inaa itixgelisid aan ka rabaa maanta ma rabno dalkeen inuu qallaaso galo ma rabno inaan dib u noqono ma rabno hadalkaagan xanaaq ayaa ka muuqday anoo maanta ku taageero weyn ayaan ku dhahayaa intaas ma rabno maanta in la yiraahdo EU iyo USA ay ku soo gambato kadibna qabiilada la siiyo hub la siiyo la yiraahdo dowladda iska dhiciya ma rabno maanta taas hadee dhacdadan ku eedsanayna maanta dalkeen ma joogo saas. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.